amiiradii iyo digir sheeko Soomaali. beri waxaa jiray amiir rabay inuu guursado amiirad run ah. waddamada dunida ayuu ku soo wareegay. wuxuu arkay amiirado badan oo qurux leh, laakiin wuxuu kala garan waayey mid run ah iyo mid been ah. amiirkii wuu iska soo noqday. gurigii aabba iyo hooyo ayuu ku soo noqday. habeenkaa roob badan ayaa da'ay. albaabka ayaa xoog loo garaacay. boqorkii amiirka aabbihii ahaa ayaa furay albaabka. waxa taagnayd kadinka amiirad run ah oo soo qoyday. ka soo gal roobka oo isqalaji, ayuu yidhi boqorkii. roobkan kama socon kartide, caawa halkan joog, ayay boqoraddii ku tiri amiiradda. waxay ka fikirtay boqoraddu si ay u ogaato inay amiirad runa tahay. boqoraddii amiirka hooyadii ahayd ayaa carartay oo meel ay seexato ayay u diyaarisay. hal digir ah ayay sariirta saartay. 20 furaashna dusha ayay ka saartay. kadibna 20 buste ayay dul saartay. amiirad run ah ayuunbaa ogaan in wax ka hooseeyaan intaasoo shay, ayay boqoraddu tidhi. amiiraddu way daalanayd oo sariirtii ayay ku seexatay ilaa subaxnimadii dambe. subaxnimadii markay amiiraddii soo toostay ayay boqoraddii ku tidhi, ka warran hurdadii xalay, ma seexan kartay? maya, xalay iliyo baalisumaan keenin oo waxbaa sariirta ku jiray, waan seexan kari waaye, ayay inantii ugu jawaabtay. boqoraddii sidaas ayay ku ogaatay inay amiirad runa tahay. inankeedii aad ayuu ugu farxay warka. aabbaheed ayuu weydiistay. aroos weyn oo cajiib ah ayaa loo dhigay. digirkiina waxaa la dhigay madxafka oo waa loo daawasho tagaa weli, ogaalkay, haddii aan la qaadan. sheekadan maxaa laga baran karaa? dhaqso waxaa u rumaynin adigoon ogayn runta. arrimuhu had iyo jeer uma eeka siday u muuqdaan. haddii aad ku cusub tahay channelkayaga, fadlan taabo subscribe, like amba share si aad noo taageerto.